xabadii haddana igu celceliyay anoo shahaadanayo xabadii igu celceliyay afar kaleeto haddana dhulka anoo jiifo afar xabaadan igu dhuftay afarta xabo alxamdulilah xabad horta madaxu iga waday geeska madaxayga waxa iga sujuud iga waday geeska iga dhacda ugu horreyn soo dhawow midda xigta ee waxaad nooga warbixisaa sida ay wax u dhaceen habka uu ku bilowday khilaafka aad sheegtay inuu idinka dhexeeyo adiga isayga taas oo sababay sida aad noo sheegtayba in dhaawac uu kusoo gaarsiiyo dhowr xabadood uu kugu dhufto abaayo muddo waxaa isqabnaa 7 sano ama 8 sano miyaa isqabnaa marka awalna waxaa wada deganeen guri gooniya oo meel gooniyan deganaa dhibaato jirto darteeda guriga uga soo tagay guriga hooyaday oo imaaday kadib buuqi yani marka guriga aan joogay buuqi dhibkii markuu igu batay iyo odayaashii badan ay wada fadhiisteen dadkii aan igu batay maxkamadii aan aaday wixii dhan igu bateen kadib guriga hooyaday iska imaaday hal san iyo baran joogay kadib aniga marka subaxaas uu imaanayo uu dhaawacayo subaxii markaan ciyaalka quraacada siinay oo hooyo iska baxday oo walaal iskoolka aaday oo hooyo oo asaga intuu hooyo wacay oo ilmaha ugu dhiibay oo hubsaday hooyo meesha ay joogto inaysan xaafada joogin hooyo ku tiraaday magaalada gudaheedan jooga hooyo waa idin imaanay ay ku tiraaday ciyaalkii oo ii imaaday wuxuu igu yiri sabarloogadii markaan siiyay wuxuu igu yiraaday inaan kula hadlaa rabaa markaasaan ku yiri maxaa igala hadlaysaa inaga dhexeeyo kadib gadaal ii tuuray bistooladii ila soo baxay bistoolad markuu ila soo baxay bistooladii ugu dhuftay markuu igu dhuftay bistooladii aniga garabka iga dhacday garabka kale ka soo baxday darbiga madaxa ku dhuftay darbigii dhawaal baabka kiisa haddana af u dhacay af markaa u dhacay haddana asaga uu iga dhaqaaqay waa soo gadiyay anoo shahaadanayo la ilaaha illa ku hayo oo ashhadu la ilaaha ku hayo soo gadiyay markaasaan marka arkay ugu soo noqday shanqartida shahaadkayga markuu maqlo ugu soo noqday markaas haddana ila korimaada xabadii haddana igu celceliyay anoo shahaadanayo xabadii igu celceliyay afar kaleeto haddana dhulka anoo jiifo afar xabaadan igu dhuftay afarta xabo alxamdulilah xabad horta madaxu iga waday geeska madaxayga waxa iga sujuud iga waday geeska iga dhacda madaxa tii kaleeto oo wadnaha iga wadayna anaa marka labada gacmood waxaan saartay indhaha tii wadnaha iga waday waxa iga dhacday gacanta iga dhacday oo waxay ii saarmatay xabadka iyadoo kulul markii dambe iska dajiyay marka iga dhacday gacanta iga jabtay kadib wuu iga tagay ciyaalkii gabadh yarta horta u imaatay waxay ku tiri hooyo aaba hooyo gabadhii dharbaaxo indhaha uga dhuftay isbuuc xataa gabadha isha way madoobeed oo way isbedeshay isheeda dhan gabadhii dharbaaxo ku dhuftay lugtiisu intuu qabto lugtu saas igu dhuftay wuxuu igu hubsanayay inaan dhintay inaan noolahay anna jaa marka intaas marka jirkayga dhan ma uusan dhaqaaqaynin markuu lugtii ku dhufanayo oo miirkayga waan qabaa waa u jeedaa wuxuu sameynayo dhan laakiin mana hadli karo jirkaygana ma dhaqaaqayo oo wuxuu noqday balaq lugtuu igu dhuftay markaasuu yidhi hooyadaa dhimatay cunugtii yareed wuxuu ku yidhi hooyadaa dhimatay gabadh yar waxaa waaye 3 sano jira 3 sano iyo xoogaa jirtaa gabadhii waa ooysay markaas gabadhii kaleeto walaashii igala joogtana banaankay ku carartay oo way ooysay way qaylinaysay wiilka yarkana adii 6 sano jir meelahaas waay qoluu galay laabkiisu ku dhuuntay meeshuu iska qaylinaya isagana yaa kuu soo gurmaday marka ay dhacdada kugu dhacday sideese ku suurta gashay in uu ka baxsado goobtii uu falkan ku sameeyey dhawaqa xaafadoo dhan jug isku soo tiraaday kadib asaga ilaa uu ka baxo guriga uu ka mirqo cidna iyo ma isa soo gelin hadii ugu yaraan 30 daqiiqo camal meesha aan joogay yani marka meesha aan joogay kadib ummadii oo dhan banaankay wada soo wada yaaceen markuu asaga baxay ani la ii soo galay markii la ii soo galay aniga kadib waxaan yiraahday asaga markuu cararay aaba ii wacan ku iri aaba la ii wacay aabe markii la wacay lagu yiraahday oday dirska waxaan ku yiraahday adeer aabe ii wacay waxa lagu yiraahday Cabdishiid gabadhaadii ninkii baa dilay guriga taala aaba khalaas korta ku kacday waa dhacay aabe kadib nimankii ciidanka meesha jooga loo diray waxa la yiraahday soo qabto waa la raadiyay magaalada waa la soo qabtay markii la soo qabtay وماشي كش قين جرا لو خيري باستو كش قين جرا لو خيري كدب adiga isbuuc markay ahayd laga bixiyay meesha waxa la yiraahday ana waxa yiraahday ninka maxamed ugu jira liga saaraa la xiro kadib waxa la yiraahday ay waa laga saaraya lagama ana saarin sidii ninka lagu xiray ayaga xirteen marka ninka anaga wali cid nagu soo wareejisay cid dawladda iyo wixii aabana uu xanuunsanayo meesha ku dhacay qala sidii aniga marka
isbitaalka lagu geeyo aniga muddo 30 daqiiqo camal guriga yaalay aan dhiig baxayay dadka dariska iyo ay soo gurmadeen dhalinyarta dariska sidii dhakhtarka lagu geeyay maadaama xaaladdu ay heerkaasi gaartay oo ilaa iyo in adiga lagu dhaawaca ay sababtay khilaafka idinka dhaxeeyo ma la xiriirtay qoyskiisa ma u sheegtay dhibaatada jirta ka hor inta aysan waxani dhicin ma la hadashay reerkiisa bay intaana maxkamadda iyo waxaas la gelin odayaashiisa iyo odayaasha dhankeena ka socdo inta waa la wada fariistay waa la wada hadlay odayaashii oo dhan waxay wada go'aamiyeen in yacni ninkan la dhaho gabadhan iska furo banaanka ka mar marka asagoo ka dhaartay oo yidhi mana furaayo marka 3 jeer ugu yaraan 3 jeer laga wada fariistay oo la yiraahday ha furo aniga marka arkay aan odayaashan iyo waxaan wax natiijo keenin kadib aniga ayaa maxkamadda aaday waxaan ku iraahday haliga furo ninkan markaas waxa lagu yiraahday lama furaayo yacni asagii aniga waan isku kan waxa la yiraahday gabadhan yacni arinta noocaas ka sheeganaysa wiil iska fur marka wuxuu yiri ma furay haddana maxkamadda sidii looga aamusay haddana markii dambe maxkamad ku noqday wuxuu yiraahday aniga gabadhan ilmeyga laga siiyo oo yacni wuxuu yiraahday ilmaha laga siiyo de Umar Ibrahim mana furay ilmaha laga qaad marka waxa ku ilaahay mana la furay ilmeyga haliga qaadanay waxaas waxa aniga wax macquul noqonaysa maane wax caadi ah leeyma ku ma halay furo oo yacni ilmahan waa la wada dhalay oo hal warqadeeda ninkan laga qaad muhiimad intaas waxa la yiri naqshida lagu qoray markaas ha ilaa naqshida ma qoritaan naqshida la iska ma qoraaye aniga ninkan haliga furo waxa ku diidayna waxa aan ogaay khilaafkani qoysidee ayaa uu asalkiisa ku bilowday ma waxaa jiray maseer adiga dhinaca ka yimid ama isaga dhankiisa ka yimid sidee markii horeba ay sheekada ku bilaabatay abaayo koow waxay ka bilaabatay mas'uuliyad darro isaga dhankiisa iyo kheyr mas'uulnimo oo dhankiisa ah xataa waxaan ku dhihi jiray xataa hadda aanan aniga waxba aadan itari karin waxba aadan qaban karin ilmahaaga waxay u baahan yihiin ama waxay dhakhtar hadda u baahan yihiin ama hadee wax kale u baahan yihiin awlaadaada wax alaal u baahan yihiin walaalo u qabso aniga waxba kaaga ma baahni alxamdulillaah rabbil caalamiin dad baan ka dhashay awlaadaada labadaada cunug wax u baahan yihiin gurigaaga joogan u sameeyso kadib wax natiijo waan ka waayo waan ka kari waayo inta soo dhan mar walba waan la hadlaa waxa natiijo waan ka waayo kadib anigii waan ka soo tagay guriga hooyadeen iska imaaday sidii hal san iyo bar guriga hooyada ku joogo hadda xaaladda qoysku maxay ku sugan tahay maxaa socda ma go'aanka ah wali in noloshiinu ay kala socnaata ayaad qaadatay mise dib baa wax waliba loo hagaajinaya hadda xaaladda waxay ku sugan tahay ninkii oo dhaawac ii geystay oo 5 xabbi ugu dhuftay oo aan la ii xirin oo la soo daayay oo BSF u shaqeynay awal ba iyaga xirteen markuu ii dhaawacay iyaga xirteen bistooladooda wax ku dilay ayagana xirteen ayagana soo deysteen kadib markaan dhahayna hal ii saara maxkamadda walaalkeen iyo dadkaygan u sheegan ku yiri ninkan maxkamadda la ii saaro aniga wax kale kama raba aan dhahayna waxa la yiraahday maxkamad lama saarayo ninkaas anagu noo xiran yahay nimanku u shaqeynayna waxay dhaheen anagu noo xiran yahay ninkaas wax maxkamadda lama saarayo wayna soo deysteen aniga oo dhaawacayga qoyan ana la soo daayay ninkaas sida aad sheegtayba ninkii waxa laga soo saaray xabsiga waxaa tilmaamtay in xuriyadiisa uu dib u helay oo ciidankii Puntland uu ka tirsanaa markii horeba ay xireen hadda ma kula soo xiriiraa oo dib dambe ma ku soo wacaa abaayo isoo wacay dhowr jeer walaalkiina uu sheegay wuxuu ku yiri aniga afkayga leh aniga waan wacay hadda doono wax ka galay ma jiraan ku yiri walaalkii teeda kalena habeen iyo maalin uu nagu dul wareegay gaari beer soo qaadanaya oo nimanku meesha ka shaqeynaya iska lahaayeen oo aan aqaana gawaarida iyo taarkooyinkooda uu igu dul wareegay awalga xaafadda ma soo gali jirin gawaarida saas uu igu dul wareegay waan imaada xaafadeena amaankayga waa dartan waan meel kuma hayo abaa isbitaalka waan ka soo baxay mar hore aan ka soo baxay guriga haddan joogo guriga hooyo awalna guriga hooyo igu xabadayaan joogay kii hadda igu xabadayay oo igu dhaawacaan joogay waana meesha igu dhaawacay kii aan hadda jooga alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana isbitaalkina mar hore ka soo baxay ma ka warhayaa labada caruur aad u dhashay oo ma dhacdaa inuu masruufkoodii bixiyo mise adiga ayaa noloshooda dabaro ma biisho ilmo awalna wuxuu u muusa qabsan jirin haddana biil iska daaya xataa seeyiin xataa cid soo dhahda abiis xataa
seeyihiin cid isoo dhahda ma jirto asaga iska daaya dhankooda xataa cid seeyihiin ilmaha isoo dhahda ma jirto ama maxay u baahanyiin haddii xanuunsadaan iyo haddii caafimaad qabaan awalba hooyada alxamdulilah rabbil caalamiin hooyada ay garab taagnayd iyo faamilkayga haddana ayaga ay garab waarid iyo walaal unbaa gacanta ku hayaan hadda wax nafaqeyn iyo wax beel iyo wax ay wax ku sheegtaan ma jirto. Aabbaha arrintan muxuu wax uga qaban waayey ma awoodi kari waayey in reerkiisa uu la xiriiro isaga oo reerkiina isugu geynayo xalinta arrintan oo wax xal ah laga gaarayo? waxa xanuunka u keenay waxa weeye waxaan dhibaatadan gabadhiisa ku dhacdo haddana waxba uusan ka qaban karin haddana hadduu maxkamad aado iyo hadduu odayaal u tago iyo hadduu dadka la hadlo dad ninkii waalidkiisa ula hadlo kulli uusan waxba uusan ka qaban karin haddana sokor uu qabo dhiikar uu qabo mar walbana waxa ku kacayaan sokortii dhiikarka xaalad mar walba ku dhex jira ah anigina warqadeeda xataa aan warqad dalaaqadayga xataa la iga soo qaadin wali xataa iska daa ilmihiis waxa uu siistay xataa dalaaqadayga xataa la igama aana soo qaadin oo maalinkii maxkamadda aan caafimaadka qaba aan tagay ilaa ay hadeertaan aan wali hadda xataa maalin dhexdaas dhow aan maxkamadda Puntland aaday waanan waxba natiijo ilaa hadda la ii keenin hadda bil sugaaya natiijadii wali waxa natiijo aan la ii keenin oo maalin walba aan aaday adahay warqadeeda ninkan ma la iga keenin xataa warqadeeda kali xataa la iga keenin laayahay. Ugu dambeyntii adigoo maadsan maxay tahay waxyaabaha aad rajaynayso iyo fariinta aad u diray ugu dambeyntii adigoo maadsan maxay tahay waxyaabaha aad rajaynayso iyo fariinta aad u dirayso Puntland iyo waliba dawladda dhexe iyo guud ahaanba shacabka laga yaabaa inay sheekadan ka warhayaan? marka baa ninka dhibaatadaas oo dhan ii geystay waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed in uu maanta amniga meel kuma ogi oo ma dhihi kara amniga sugan yahay guriga hooyadii aan joogay oo igu xabadayaan jooga alxamdulilah rabbil caalamiin istaalku waa ka soo baxay istaalku ma jiray guriga hooyaday kii ugu xabadayaan jooga amnigeygana ma sugno intaasna maadaama markii horena waa awood uu haystay oo awood ciidan uu haystay askari uu ahaa oo bisooladiisa uu watay garab dhinac ku watay haddana bisooladiisa uu wato oo awood kale tan haysto oo dadkii oo awalba dhaheen soo xireen haddana ay soo daayeen ee dhahan anagu noo xiran yahay BSF hadana anagu noo xiran yahay dhaheen kuwiina ayagan ay soo deysteen hadeertan oo haddana uu gaafareegayo amnigeyga meel aan ku ogeyn aniga caruurteyda amnigeyga meel aan ku ogeyn de wadankana maanta cid maanta guriga wax ku kale lagama ogo marka amnigeyga maanta kuma ogi caruurteedii faamilkeyga amnigooda aabay iska xanuunsan yahay oo diskorti iyo dhiikarka ku kacayso dhiikaris kor u qaba. taas waxay ahayd Fardowsa Cabdirashiid oo sheegtay in saygeeda dhibaato badan oo dhanka nolosha ay ka qaabishay taasoo xitaa sababtay in uu dhaawaco maadaama uu ka mid yahay sida ay tilmaamtay ciidanka Puntland.